faadumo cali maxamed waa hooyadan waayeelka waxay la daala dhacaysaa xanuun haleelay oo say dhakhaatiirtu u sheegeen gebi ahaan bedelka gudihiisa aan waxba lagaga qaban karaynin. xanuunka haleelay ayaa ah fiix ka soo baxtay cunaha waxaana uu raacay xanuunka faaliga loo yaqaano gebi ahaanba waxaa loo sheegay inaan dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karaynin. haddaba telefishinka caalamiga gobonimo oo ku buuqday hoygay ka degatay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer iyo gebi ahaanba markaad soo gaadho hoyga ay ku nooshahay waxaad ka argagaxaysaa halkay ku nooshahay buul yar oo aanaad ku aaminteen naftaada nolol ahaan nadaafad ahaan amni ahaan. buulka ay ka degan tahay oo ah ay sheegtay inuu yahay kiro ma awoodo kirada oo dhan 50,000 shilinka Somaliland. gebi ahaanba buulku markaad soo gaadho maaha mid qorraxda iska xijinaya dhibica roobka dabaysha midnaba maaha mid u adkaysanaya malaha albaab. gebi ahaanba way idin muuqdaa halka ay ku nooshahay iyo xaaladda caafimaad darro iyo duruufta nololeed ee ku gadaaman hooyo faadumo cali axmed. inanteeda Kisi ayaa ka warbixisay xaaladda hooyadeed waxaanay tiri badan hoygii aan ku jiray oo la yiri ka baxa ayaa aniga islaanta waxa yaraan meel u dhigo riyaa ka cunaya meesha marka ciyaal baa soo galaya waa hooy meel bilaakadna aan hooy lahayn marka waxban anigu doonaya hadda in maxay tahay meel aan ku hayo ummadda islaamka bisha Ramadaan inay ii soo tabarrucaan waxay hayaan. xagee bay ku raadeen dhakhaatiirtu wax waa lagaga qaban karayaa hooyo iyo sida loo hayo iyo halka wax loogu soo hagaajinayo bal noo sheeg walaal. waxay dhan dhakhtar tukriyo dibadda hal geeyo tukriga geeyo baa leeyahay. xagee bay bulshada muslimiinta ay wax kugu soo hagaajinayaan bal ka waran walaal noo sheeg halka wax loogu soo hagaajinayo. Axmed Cali baa ku taala lambarkaas ay leedahay lagala soo hadlaya waxaan ka codsanayaa islaanta in ummadda muslimiinta waxay hayaan beedkii oo laga saarayo meel aan geeyo oo maanta ku waajahan geeyo ma hayo. walaal fadlan ku caawi faadumo cali maxamed ee la daala dhacaysa xanuunka daran ee haleelay iyo duruufaha nololeed ee ku gadaaman. fadlan walaal ku caawi wixii aad awoodo lambarada Somtel iyo Tilsom ee shaashada ka muuqda ugu hagaaji. waa Saciid Cali Cismaan Xalays telefishinka caalamiga gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.